kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono ulajeedka heesta nolosha cusub soo dhaweey inkastoo heestani muran fara badan ay dhalisay abwaano fara badanna ay ka doodeen annagu erayada heesta ku jira midna ma gudagali doonee waxa aynu u iftiiminaynaa shacabka Soomaaliyeed qisadan heesta halka ay ku socoto badankood shacabka Soomaaliyeed aysan ka warqabin abwaan Jeylaani waa erayada heesta abwaanka alifay waxa uuna ku sugan yahay magaalada Hargeysa Maxamed Bikeyna waa fanaanka ku luuqeynaya heesta erayo aad u macaan oo dhammaan daawadayaasha sharafta leh Soomaaliyeed ay si weyn uga heleen ayaa ku jirta balse badankood dadku ma fahamsana qisadan sababta keentay iyo waliba halka ay ku socoto erayadan kulul ee laga dareemayo jacayl guul daraystay iyo saameyn nolol oo qofka uu noloshiisa dib u weerarayo bal daawade nuxurka erayada ku jira ee aan falanqayn doono qun yar u dhageyso oo dhuur fahamkeedana lahaw nolosha cusub soo dhaweey nolosha cusub soo dhaweey nolosha cusub soo dhaweey nolosha cusub soo dhaweey heestani nolosha cusub soo dhaweey oo alifay abwaan Jeylaani waxa ay ka dambeysay kadib markii uu soo dhamaaday safarkii fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ay ku bixinaysay gobolka ka tirsan waqooyiga Soomaaliya oo imika la isku yiraahdo Somaliland isla markaana ay halka ay kala qayb galaysay showyo kala duwan fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalooyinka hoostaga deegaanada Somaliland haddaba heestani waxa ay ka dambeysay sidoo kale nuxnux iyo xan fara badan oo magaalooyinka Burca iyo Hargeysa saameyn weyn ku yeelatay oo ku saabsan xiriir hoosaad ka dhaxeeya waqtigaasi waa sida ay hadalka u dhigayeen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan Burca iyo Hargeysa fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan Deere iyo waliba Mursal Muuse mar haddii erayadaasi ay kaaga muuqanayaan in la samirsiinayo fanaanka Mursal Muuse mar haddii ay ambabaxday Hodan Cabdiraxmaan ayaad waxaad isweydiinaysaa erayadan abwaanka alifay muxuu ku keenay ma xog ayuu haayay ma waxaa jira cid u sir warantay oo lamaanahaasi ka warqabtay haddaba aan ku iftiimiye Jeylaani iyo Mursal Muuse waa saaxiib waxayna waqtiga badan ku wada qaadan jireen gudaha magaalada Hargeysa Mursal dhowr jeer ayuu Jeylaani uga warbixiyay sida magnetka oo kale sida igu soo jiidatay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan wuxuu kaloo Mursal u sheegay in Hodan ay tahay qof aad u kaftan badan waliba naftiisa ay aad u soo jiidatay walibana uu aad uga helay Jeylaani ayaa dhowr jeer kala taliyay oo ku yiri waxa tahay qof qoys leh isku day inaad fahanto waxyaabaha kaaga iman karaya haddii arrinkan oo fashilmo oo sheekadu ay noqoto mid dadku ay ka warqabaan Mursal Muuse ayaa mar walba abwaanka ku daji jiray haddii erayadaasi uu yiraahdo in jacaylku hadduu muddo dheer socdo mar uun laga salgaarayo arrinkan waxa si rasmi ah noogu xaqiijiyay abwaanka heesta alifay ee Jeylaani aan ku xasuusiyay dhageystow abwaankan heestan sameeyay waxa uu qoraalka heesta bilaabay iyadoo Hodan Cabdiraxmaan joogta gudaha Hargeysa balse ma uusan doonin waqtigaasi inuu shaaciyo sida aad ka garan doontaan codkaan idin maqashiin doono oo meel ay dad fara badan joogaan oo ka sheegay fanaanka Maxamed Bikey isagoo aanan ka warqabin qisadan ulajeedka uu Jeylaani ka leeyahay waxaan kaloo idin xasuusinayaa in Jeylaani erayada diyaarinteeda oo magacii Mursal Muuse ku bedelay Jeylaani maadaama haddii Mursal laga dhigo arrinku uusan sarbeeb noqon karin bulshadoo idilna ay fahmi karayaan waa murti iyo daboolkeedii Jeylaani qoraalkiiba wada Mursalna waa daacad haddaba Jeylaani erayada heesta markii uu diyaarinayay ama uu qisadan ka sameynayay hees marnaba Jeylaani uma uusan sheegin Mursal Muuse marnaba ma uusan u sheegin Mursal Muuse inuu hees ka sameyn doono qisadan isaga iyo Hodan Cabdiraxmaan qaab qiyaano ka muuqato ayaa loo diyaariyay heesta Mursalna ma uusan ka warqabin habeenkii la qaadayay ayaa la gaaray Hodan way ka tagtay Hargeysa waxa ku haray oo kaliya Mursal oo qalbiga ku haya qofkii uu sida degdega u jeclaaday marna fanka kula jirto oo aadna u soo jiidatay nafsadiisa yahay cashaqo ka gaday kale aqligeedii xusuusku casuumane ila daawo helmoodaysa modaysa dadan helmoodaysa
saf ballaaran ayaa lagu wada jiraa waxaa wada fadhiya fanaaniin abwaano muusigiistayaal iyo weliba qaar ka tirsan saxafiyiinta ka howlgala tv-ga ku hadla codka maamulka Somaliland hadalkii waxaa qaatay Maxamed Bikey dhammaan fanaaniintu way wada eegayaan mursalna ma uu ka warqabo heeskan uu soo wado murtida ku jirta iyo ulajeedka laga leeyahay Bikey ayaa qudhiisa wuxuu heestan sheegayaa in muddo dheer ka hor la sameeyay qisadaba ay tahay muddana ay soo socotay waqtigana uu inuu ku soo beego waa miskiin oo xaalkiisaba aan la socon ma oga erayada heesta uu qaadayo ulajeedka iyo weliba danta laga leeyahay bal ila dhageyso oo dhuux hadalkan uu leeyahay Maxamed Bikey ka hor intuusan heesta qaadin horta waxaan sidaa caawa hees qisad dhaba xambaarsan waxa sameeyay Cabdirasaaq Xaamud Aydi Jaylaani sababteedu waxay qisadu maaha anigu caawa waxaan noqonayaa Jaylaani oo heesay magaca isaga sameeyay marka waan haystay oo qisadu tahanay la soco qaybta labaad falanqaynta ulajeedka heesta nolosha cusub soo dhaweey waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan howlwadeenadii isugu jiray abwaano iyo fanaaniin gacanta weyn ka geystay inaan diyaariyo barnaamijkan waa Cabdilaahi Balwaano idinku dhaafaya intaynu barnaamijka lamida ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo oo ku saabsan xiriir hoosaad ka dhaxeeya waqtigaasi waa sida ay hadalka u dhigayeen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan Burco iyo Hargeysa fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan Deere iyo waliba Mursal Muuse mar haddii erayadaasi ay kaaga muuqanayaan in la samirsiinayo fanaanka Mursal Muuse mar haddii ay ambabaxday Hodan Cabdiraxmaan ayaad waxaad isweydiinaysaa erayadan abwaanka alifay muxuu ku keenay ma xog ayuu haayay ma waxaa jira cid u sir warantay oo lamaanahaasi ka warqabtay haddaba aan ku iftiimiye Jaylaani iyo Mursal Muuse waa saaxiib waxayna waqtiga badan ku wada qaadan jireen gudaha magaalada Hargeysa Mursal dhowr jeer ayuu Jaylaani uga warbixiyay sida magnetka oo kale sida ay ugu soo jiidatay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan wuxuu kaloo Mursal u sheegay in Hodan ay tahay qof aad u kaftan badan waliba naftiisa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono ulajeedka heesta nolosha cusub soo dhaweey inkastoo heestani muran fara badan ay dhalisay abwaano fara badanna ay ka doodeen annagu erayada heesta ku jira midna ma gudagali doonee waxa aynu u iftiiminaynaa shacabka Soomaaliyeed qisadan heesta halka ay ku socoto badankood shacabka Soomaaliyeed aysan ka warqabin abwaan Jaylaani waa erayada heesta abwaanka alifay waxa uuna ku sugan yahay magaalada Hargeysa Maxamed Bikeyna waa fanaanka ku luuqeynaya heesta erayo aad u macaan oo dhammaan daawadayaasha sharafta leh Soomaaliyeed ay si weyn uga heleen ayaa ku jirta balse badankood dadku ma fahamsana qisadan sababta keentay iyo waliba halka ay ku socoto erayadan kulul ee laga dareemayo jacayl guul daraystay iyo saameyn nolol oo qofka uu noloshiisa dib u weerarayo bal daawade nuxurka erayada ku jira ee aan falanqayn doono qunyar u dhageyso oo dhuux fahamkeedana lahaw nolosha cusub soo dhaweey nolosha cusub soo dhaweey nolosha cusub soo dhaweey nolosha cusub soo dhaweey heestani nolosha cusub soo dhaweey oo alifay abwaan Jaylaani waxa ay ka dambeysay kadib markii uu soo dhamaaday safarkii fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ay ku bixinaysay gobolka ka tirsan waqooyiga Soomaaliya oo imika la isku yiraahdo Somaliland isla markaana ay halka ay kala qayb galaysay showyo kala duwan fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalooyinka hoostaga deegaanada Somaliland haddaba heestani waxa ay ka dambeysay sidoo kale nuxnux iyo xan fara badan oo magaalooyinka
magaalooyinka Burco iyo Hargeysa saameyn weyn ku yeelatay ay aad u soo jiidatay welibana uu aad uga helay. Jaylaani ayaa dhowr jeer kala taliyay oo ku yiri waxaa tahay qof qoys leh, isku day inaad fahanto waxyaabaha kaaga imaan karaya haddii arrinkan oo fashilmo oo sheekadu ay noqoto mid dadku ay ka warqabaan. Mursal Muuse ayaa mar walbaba abwaanka ku daji jiray haddii erayadaasi uu yiraahdo in jacaylku hadduu muddo dheer socdo mar uun laga salgaarayo. arrinkan waxaa si rasmi ah noogu xaqiijiyay abwaanka heesta alifay ee Jaylaani. aan ku xasuusiyay dhageystow abwaankan heestan sameeyay waxa uu qoraalka heesta bilaabay iyadoo Hodan Cabdiraxmaan joogta gudaha Hargeysa, balse ma uusan doonin waqtigaasi inuu shaaciyo sida aad ka garan doontaan codkaan idin maqashiin doono oo meel ay dad fara badan joogaan uu ka sheegay fanaanka Maxamed Biike oo isagoo aanan ka warqabin qisadan ulajeedka uu Jaylaani ka leeyahay. waxaan kaloon idin xasuusinayaa in Jaylaani erayada diyaarinteeda uu magacii Mursal Muuse ku bedelay Jaylaani maadaama haddii Mursal laga dhigo arrinku uusan sarbeeb noqon karin bulshadoo idilna ay fahmi karayaan. waa murti iyo daboolkeedii Jaylaani qoraalkiiba wadaa, Mursalna waa daacad. haddaba Jaylaani erayada heesta markii uu diyaarinayay ama uu qisadan ka sameynayay hees, marnaba Jaylaani uma uusan sheegin Mursal Muuse, marnaba ma uusan u sheegin Mursal Muuse inuu hees ka samayn doono qisadan isaga iyo Hodan Cabdiraxmaan. qaab khiyaano ka muuqato ayaa loo diyaariyay heesta, Mursalna ma uusan ka warqabin. habeenkii la qaadayay ayaa la gaaray, Hodan way ka tagtay Hargeysa, waxa ku haray oo kaliya Mursal oo qalbiga ku haya qofkii uu sida degdega u jeclaaday, marna fanka kula jirto oo aadna u soo jiidatay nafsadiisa. yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeedii xusuus ku casuumane cidladaa wehel moodaysaa cidladana wehel moodaysaa. saf ballaaran ayaa lagu wada